السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا الله يوم ميلا جوكتان بوايد سلامي مسج كان وحن أوتلقى قادك إنان كجاه الله. سوماليا سيدا دكسونتهين هذا الديار دي هو دون تاغيهين قاد كينا الحمد لله ولجوك سدي هالكاسا وحن روا مناسبات إنان واحد الله. horta intaanan ka hadlin joojintiisa iyo wadidiisa waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka qaadku uu leeyahay fardiga iyo qofka uu leeyahay shacabka iyo dadweynaha uu leeyahay kow wuxuu ka qayb qaataa waxa la yiraahdo inuu qofku shaqaysanin qofku wuxuu raadinayaa mutca oo ah inuu naftiisa saacado kaliya u raaxeeyo kadibna caawa dhan wuu soo jeedayaa kadibna berri hadduu shaqayn jirayna wuu ka daahi haddii kalena maba kacaya halkaasuu jiifaya marka inay dadkii noqdaan wada shaqo la'aan buu qayb ka qaataa waa marka labaad wuxuu hoos u dhigayaa wax soo saarka iyo camalka iyo shaqada nin caawa dhan qaad u fadhiyay wax ma soo saari karaa iyadana bulshadaas iyo wadankaasba markaas wuu la harayaa wax soo saarkiisa waa arinta saddexaad faqriga iyo saboolnimadana qayb buu ka qaataa qofkii wax yar helaa wuxuu la aaday inuu qaad ku gato walidaalika baad arkaysaan suuqaqa boqolaal deymo loo haysto oo gabdhihii qaadka gadi jira ay ku dhagan yihiin kuleetiga oo deymaysan ayaad ku arkaysaa wuxuu qaab ka qaataa qaadku dhibaatada xagga inxiraafka iyo qalooca dadka dhalinyarta ah waxay ku fikirayaan inay wax dhacaan waxay ku fikirayaan inay xadaan meeqaad arki jirtay gabdhaha qaadka gado oo laga jeebsiibayo oo qaadkii lagala cararayo oo nin dee baahan oo qaadiraysan oo qaadkii hayo ilaan waa darooge wuxuu samaynayaa marka waxa ijraamka dilka xatooyada boobka ayuu qayb ka qaataa wuxuu qayb ka qaataa qaadku waxa la yiraahdo qoysku inuu kala furfurto oo kala baabao oo qoyskii khilaafaad baa ku iman wuxuugaaga yaraa la helay odaygu wuxuu rabaa inuu qaad ku gato haweenaydii way ka celinaysaa ilmihii way baahan yihiin tacliin bay u baahan yihiin shiqaaq iyo khilaaf baa iman ugu dambeynna talaaq baa iman walidaalika wuxuu ka qayb qaadanaya reeruhu burburaan oo ay bataan waxa la ilmaha aabala-aantii uunan la joogin hooyadii single motherka ahayd ayuu qayb ka qaadanaya wuxuu qayb ka qaataa qaadku waxa la yidhaha tacliimta hooseysa iyo waxbarashada aan tabarta lahayn oo joodada aan lahayn taasina waxay ku macallin caawa dhan qayilayay بالله عليك بري أو إنها مرانية أو صلاة صباح أن تكنين محوطة كل شيء كراه أرضي النفتيس وحاله كجرا إنه قاد يسوي نرات سدو برقن كي صاك عيا أو يسوي نفيس يسوي جلاس كي لجلو مادة كهر مرتي سداب امتحان وباسية مركز تعليم توطن كاسنا وبربرية وحو قيب كقاتا قادكو إني نددكو جورسنين أو جور كلاجتاهو محاجرة نينكي ما أنت مركو كوفي كرينو مردوف كي سي يبسدو wax ma dhigan karaa ma ka bixi karaa inuu guursado lacag ma u dhigmaysaa ninka isaga ah nin darooga isticmaala lacag u dhigmaysa marka guur la'aan bay bulshadii ayay ku soo baxaysaa waxay noqonayuu ka qayb qaataa fasaadka bulshada iyo waxa la yiraahdo rishwadu waa laaluushka in la qaato ninku markii uu waxan ku isticmaalo laaluush buu qaadan ka jidka taagan wuu qaadan ka wasaaradda jooga wuu qaadan ka shurtada iyo baalkii booliska wuu qaadan marka waxay noqon inay dad wada qaadiraysan oo wada dhaafsada ummadoodii inay laaluush qaataan baa meesha ka soo baxaya waxa uu ka qayb qaataa fisqiga iyo dunuubta iyo macaasida iyo ikhtilaadka isdhaxgalka rag iyo dumar isdhax cararaya oo wada qaylinaya fowdada inay wadanka ay ka bilaabato dawda iyo qaylada tirada badan wada arteen aswaaqda suuqa markuu soo galo qaadku qayladii ka bixi jirtay soo dhaciyay kanuu ka baxayay fulaan wadad iyaga dhawada taagan oo kulligoodba wax miyir qaba aan lahayn ayaa ka soo baxay wuxuu ka qayb qaadan caruurtaadii inaad u noqoto dayasho xun aad u noqoto aabaha qaadka cuna ama sigaarka cabay ilmihiisina dhawaan way u soo galayaan isoo gadbuleeya iyaguna wadada xun ayay lugta saarayaan miisaaniyadii iyo dakhligii ummadda ama fardi shakhsi ha noqdo ama dadweynihi oo dhan ha noqdo ama dawlad ha noqdo dadka ka shaqeeya ama sharikaadka ha noqdo waxay noqonayaan wuxoodii oo dhan dad baa soo beera iyagu ma cunaan way soo dheebgeynayaan kadib inagaa shilinkeenii la qaadanaya haddaba intaasoo dhibaataa marka sixada iyo caafimaadka waa qaybta ugu weyn oo qaybka uu ka qaaday hadda waxaa soo cudurrada koroonaha iyo balaayooyinkan socdo oo dhan qofka qaadka cunaa iyo sigaarkii waa u nugul yihiin haddaba waxaan rabay inaan soo jeediyo
qaadka haddii diyaaradu hadda way xiran yihiin haddii xitaa la furo inaan lagu soo celinin qaadka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay joojiso gobolada Soomaaliya mas'uuliyiinta jooga waxaan ka codsanaynaa inay joojiyaan dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan maamulada oo laga qayb qaato sidii loo joojin lahaa dadka danyarta ah oo ka shaqayn jiray inay sharikaadka iyo dadka ilaahay wax siiyay muxsiniinta iyo dowladaha gobolaadka iyo dowladda dhexe intay waxa noqdaan inay dadka wax ay ugu tala galaan oo lagu furto waxyaabo yar yar meerada yar yar baa lagu furan karaa cooshada lagu furan karaa waxaa laga shaqayn karaa khudaartii raashinkii shaahi bay gabdhuhu gadi karaan meeshay ka shaqayn jireen qaadkii marka arrinta xitaa in la sameeyo oo culimada iyo dowladda iyo dadkan oo dhan isu tagay ay sameeyaan hay'ad zakooyinkii lagu ururiyo oo dadka masaakiinta iyadana bedel u noqoto ugu dambeynta waxaan rabaa inaan u soo jeediyo shukri wa taqdiir qaad la qabtay baan arkayay oo booliska Soomaaliyeed ay qabteen oo la soo qariyay oo boorsooyinka lagu soo qariyay inaan niraano wad ku mahadsantiin wasaaradda dawladda iyo hawada ninka la yiraahdo wasiir Omar oo kale si gaar ah runtii ugu mahad celinaynaa oo hawshaas iyaga qabtay oo ummadda